السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qodobkan waxaan ka arki doonaa insha Allah sidee loo aqbalaa lacagaha. Way waxaan ka hadlaynaa insha Allah haddii businesskaadu uu noqdo business online oo online business aad furatid waxaa laga yaabaa inaad ka fakartid lacagaha sida loo aqbali lahayd inaad ka fakartid. Taas ayaa laga yaabaa issue-gaada koobaad inay noqoto. Marka arrintaasaynu dul istaagi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan kaa codsanayaa marka koobaad in aad logo kusoo biirtid oo follow garaysid ama subscribe ku dhufatid sidoo kale muuqaalkan aad like garaysid si dad badan ay uga faa'iidaystaan aad baan kugu mahadcelinayaa. Intaa kadib insha Allah barnaamijkan waxa uu qayb ka yahay si guud barnaamij aan wadnay oo la xiriira sida aad ku furan lahayd ganacsi online ayuu qayb ka yahay. Marka muuqaalada hore dib aad u noqon kartaa oo soo daawan kartaa. Way marka dhowr qaab baa jirta runtii marka lacag dunyada bulshada ka qabato. Waxaan hore uga soo sharaxnay inaad property-ga samaysid, service-ki samaysid, package-ki samaysid, offer-ki samaysid, waxa dhan ka soo iyaga waxa weeye lacagtii lacagta marka dhowr qaab baa jirta. Qaabka koowaad waxa weeye in aad isticmaashid adeegyadan dahab, saad, sahal, amal iyo kuwa la midka oo lacag qabashada. Marka kuwaas laba qaab weeye. Haddii website aad leedahay oo aad businesskaada u samayso website ama mobile app marka qaybtood waxaad ka codsan kartaa API waa la isugu kaa xiriirin karaa qof developer ah oo kala tuuri kara hadaad developer tahay adaa kala tuuran kara kadibna waxa weeye waxa software-kaadu automatic u jaran karaa lacagtii qofka lambarku uu gelinayaa kadibna lacagta soo baxaysa kadibna biinku gelinaya sidaas aad ku xalin kartaa. Waxa weeye marka waxaa ku hartay mararka qaybtood waxaa dhici kartaa inaysan kuu suuragal ahayn kaas inay galatid. taa marka adaba waxaad ku xallin kartaa in aad qoraal diyaarsatid oo ah lambaradii lacag kugu soo dhici lahaa oo nidaamsan haddii kaaga soo dhacayso dahabta, saadka, sahalka, amal iyo wixii lamid ah kaaga soo dhacayso inaad diyaarsid ayaad samayn kartaa iyo waladyada kale ee jira. qodobka xiga waxa weeye online payment-iga oo ah PayPal-ka. wadamada dibadda ah haddii lacag kaaga soo dhacayso oo international-ka ah waxaad isticmaali kartaa PayPal. PayPal iyo kuwa kalena way jiraan oo la isticmaali karo laakiin PayPal-kaas ugu fudud waxa weeye wuxuu leeyahay qayb merchant ah iyo qayb aan merchant ahayn. Ka merchant-iga ah marka sida garaysanaysa badanaa Soomaaliya direct oo ma aqbalo therefore waxaad samaysanaysaa wadamada kale ayaad isticmaali kartaa. tusaale ahaan Kenya oo kale ayaad isticmaali kartaa si aad lacagta u qabatid. wadamada kale hadda international joogtada ayagana si way fududahay lacag qabashada. marka akoonkaas PayPal-ka ah ayaad samaysanaysaa merchant-iga ah website-kaada ku xiriirinaysaa ama mobile app-kii si fudud ayaa marka lacagta uga jaran karaa meeshaad ay kusoo gelaysaa wallet-kaada. marka adiga waxaa su-aashu noqon kartaa lacagta markay kusoo gasho haddaa bangi Kenya leedahay lacagta deposit waa ku dhigi kartaa ama bangiyo kale wadamada kale international-ka haddaa leedahayna lacagta deposit waa ku dhigi kartaa. intaan hadda arkay bangiyada Soomaaliya ku yaala direct lacagta deposit waa soo kara laakiin way dhici kartaa in isbedel ay yimaadaan muuqaalkan. laakiin costiga waxa weeye saas weeye. haddii kale marka waxaad samayn kartaa lacag badan hadii ku aruurto qof baa u dirsan kartaa xawaalad jooga PayPal-ka u diri kartaa iyo soo dib dhigi kartaa sidaas aad ku xalin kartaa. qodobka xiga waxa weeye macaamiisha waxaa jirta wax la yiraahdo Google Forms oo orders-ka ku qabsan kartid. order-ka marka aad macaamilkeena dalabka ka qabatid salaam waxa soo buuxi xaga soo dooro dhag form Google Form la yiraahdo ayaad diyaarin kartaa oo shaqada dhan ku diyaarin kartaa. waxaa isticmaali kartaa WhatsApp Business. marka WhatsApp Business-ka iyo WhatsApp-ka caadiga way kala duwan yihiin. WhatsApp Business-ka si gaar ah u baro oo diyaar insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo. inoo wixii uu soo aruurinaa oo hadda wixii oo dhan kama wada gaarno laakiin wax walba point-igi halkaas ka sii raacaysa. marka mustaqbalkan dhici karta waxyaabaha qaybtooda haddii aad soo dalbataan inaan muuqaal gaar ah idinkaga sameeyo sida shaqooyinka loo qabanay laakiin waan warkii baan soo aruurinay. WhatsApp Business-ka marka wax badan lagu rangarayn karaa qofkana orderadii ama dalabaadkii WhatsApp-ka ayaa hawsha dhan ugu kala tuuri karaa. kuwaas intaas ugu caansan especially area-deena marka la joogo oo shaqooyinka inta badan inahaas isku dhamaysan kartaa Ilaahay idankii. waxaan rajaynayaa marka muuqaalkan inay kuu fududaan doonto inaad accept payment-iska aad diyaarisid. haddaad manual dadka wax ugu dirdiraysid waxa fiican inaad qoraal dhamaystiran aad diyaarsatid oo hal mar qofka aad u dirtid aqoomadii kala duwanaa iyo qaabka kala duwanaa ay lacagaha u soo diri kartaa. waxay fududaynay inuusan qofku lacagta khaldin aan wax kala samayn ee wixii intuu ku biyay automatic soo diro shaqadina sidaas ugu dhamaystirtay.
muuqaalka marka qodobka waa qodobka toddobaad haddii aad koorsadeennii ama barnaamijkii aanu sharaxaynay ee kala duwanaaya la xiriiray sidaad ganacsi online aad u bilaaban lahayd sanadkan ayuu qayb ka yahay muuqaalkan wuxuuna noqonayaa kii toddobaad oo ah paymentigii sidaad ku heli lahayd